waxaanu samaynay qaliinkii toddobaad ku samaynay Foosiya magaalada haddaan galana waxa moorarka i dhisan way wax moorar iga dila man arag heegasam iminka waa hubal caan ah balse jid dheer iyo rafaad kadib ayay arrinkani u suurta gashay Foosiya Gaabo. maxaad kala socotaa taariikhdeedii hore ee nolosha Foosiya Gaabo? imise caruur ayay dhashay? sidee ayayna caruurtaasi ku dhashay? sidoo kale maxaad kala socotaa taariikhda jacaylkeedii ninkii sideeda oo kale u gaabnaa maxay ku kala tageen oo ay kaga raacday Foosiya ninka dheer? iyada iyo wiilkay hore u jecleed ayaa qisadaasi ka sheekaynaya. muuqaal ayaynu idinkaga haynaa. sidoo kale warbixino kale oo ku saabsan Foosiyo iyo sida iminka ku noqotay hubal caan ah ayaynu warbixintan ku soo qaadan doonaa. haddaba intaan u galin haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreeyay ee janaalkeena, fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarato si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino. Foosiya Muuse oo ku magac dheer Foosiya Gaabo waxa ay mar qura ka soo muuqatay shaashadaha social media. dad fara badan ayaana si fudud u bartay maadaama ay ka duwan tahay bulshada kale oo Ilaahay u dhaliyay gaabni. hase yeeshee iyadoo midaasi ka faa'iideysanaydo iyo habjilinkeeda qurxan ay si weyn caan kaga noqotay baraha bulshada. haddaba maanta barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa taariikh nololeedka Foosiya inta aan u galin jacaylkeeda iyo warbixinada ku saabsan. marka hore waxaynu idin soo bandhigi doonaa Foosiya waa hooyo haysata 7 caruur ah. dad fara badan ayay la yaab ku tahay. haddaba maasha Allah ayaynu leenahay. hase yeeshee Foosiya ayaa rafaad ka martay sidii caruurtaan ay u dhali lahayd iyadoo markaasi qaliin u martay 7 caruur ay dhashaba. haddaba waa kan muuqaal laga duubay cunugeedii 7aad ee ugu dambeeyay kaas oo lagu qalay isbitaalka. iyada iyo doctorka qalay ayaa arrinkaasi ka warbixinaya. waxaan qaliinkii toddobaad u samaynay Foosiya Gaabo sababtiin ba caan ku ah waddankan magaalada Hargeysa caan ku ah waa hooyo dayacan wadanka soo warteen caruurtii 7 oo kuwan maasha Allah harra ka taagan. doctorka gacantiisa Allah barakeeyo muraadkiisana Allah siiyo abaalkiisana mana gudi karayo. wuxuu ilmaha ugu horeeyay maalintan tagay wajigu igu soo dhaweeyay wali aalaanka igu soo dhaweeyay. waxaan dadkayga ka waayay ayuu Ilaahay ummadda igu daray. Allah barakeeyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan wixii muslim oo dhan Allah barakeeyo. shaladii u dambeysay waxa yimid Nuuraddiin niyadu i dhisay wuu soo dhaweeyay. wuxuu igu ballan qaaday caruurteeda inuu iskuul igu daro. magaalada haddaan galana waxa moorarka i dhisan way wax moorar iga dila man arag. Allah baraka. waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan daawateen. waxaan leeyahay Ilaahay awlaadaada baari ha kaaga dhiga Foosiyo hana noqdaan kuwii adiga iyo dalkoodaba anfaca. haddaba dhanka kale sheekada xiisaha ayaa waxa ay tahay maxaad kala socotaa noloshii hore ee Foosiya Gaabo? miyay jacayl soo martay, wax jeclaatay, iyadana la jeclaaday? waa kan waraysi laga qaaday iyada iyo wiilkii ay hore isku jeclaan jireen. Foosiya ayaa wiilka waxa ay ku diraysaa inuu isagu ka tagay, hase yeeshee si cajiib ah ayuu ugu jawaabay kaasoo muujinaysa in kala fogaanshiyaha uu ka fogaaday uusan ahayn mid qalad ah. waa kan iyaga oo ka hadlaya arrinkaasi. su'aal baad Foosiya oo qof caana taho internetka meel walba laga su'aasha aan toos ku weydiiyo calafkan ku raaco halkiisa laakiin haddana qof calafka yar kale kaliyo dhaqaajiya maxaa ka timid inaad ninka dheer sida Maxamed Cadaysay oo kale may ana karo Mustafa isku wadi Mustafa isku wadi Mustafa maxaad ka inta uga dhacday ma inuu kama leeyin waxaan ku wariye way waarin aad yar wanaagsan way laakiin waxaan ku wariye Foosiya imika dil labadeen loo iskuulsano way oo magaalada aroos daniga naagti aan soo isku noqono way dadkan mudan kala waa xagga magaalada xagga hawlaha iyo xagga shaqooyinka waa kacado moogtahay waa kacado moogtahay ya way kawri way waxa uu yiri hawlo badan baa qabiyeen ugu noqonaya markaan hawsheena ka soo baxno hawlo badan baa qabiyeen ugu noqonayo laakiin fikirka ma diidanay dibadda fikirka ma diidanay marka meela kaaga baxday Foosiya ma kaaga baxay giigama bixin adag kaga baxay ku tiri watii hor fadhiday aan ku wadi taxanta biyaha talabadeedu kama wada siri hadaba inuu ku sheegay wasiiradii oo dhan baan soo dhaweeyay idaacadaha beel lama sheegay wasiiradii oo dhan baan soo dhaweeyay idaacadii shaqaalihii idaacadaha oo dhan baan soo dhaweeyay malaha ma xasuustaan maleeyaa
qajilaad ma buu istaagi jirin ba وكا قتلي isaga qatili way riga malaaka suunis kuma qabino sonda ilmika oo kala way way kowre marka waxa weeyaan foostada laftigeeda farsamo la isku dhaafa haddaan kursi dhigano waan iska shuban karnaa waa caadi مصطفى مالن يا دركي تانو مصطفى arti waa inteedo soo jeesa xaga dharka imka marka meedho naagimo wada xadiga naagimo saarto farsamo ku saarta way marka dad dhaado labadeenani meel ma gaarino waxa hagaagaya runtii waa arrin madadaalo iyo maad leh hase yeeshee daawadayaal inta aan u gelin warbixinada kale ee Fuusiya ku aadan sida carruurteeda inta iyada raacday oo gaagaaban iyo inta ninkeeda raacday iyo warbixino kale oo ayada ku saabsan marka hore waxa laga yaabaa dad fara badan oo idin kamida inaysan hore u arkin Fuusiyo haddaba waxaad ila daawataan kilib yar oo aynu idinkugu muujinayno habjiliinka Fuusiya iyo sida ay u soo bandhigto riwaayadaheeda cajiibka ah Fuusiya habibi farqi baan ku seediyay waay oo macdan be الله لا لا ما شاء الله بارك الله عليك بارك الله وكا هي قسم همسبار هم بيارك بابيا بالي هم يومي ديلي جالي هم waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan daawatay runtii daawashada gabadhan si gooni ah ayaan u xiiseeyaa waxaana leeyahay hore u soco oo horumar wacan gaar waxaana kaga mahad celinayaa dadkii jaanis ka siiyay oo ay ka mid tahay bahda Honkebel iyo sidoo kale majaajilistaha weynka ah ee isku filan inay arrintaani gabadhan ku dhiirigeliyaan oo ay hibadeeda banaanka u soo bandhigaan haddaba dhanka kale Fuusiya ayaa ka warbixinayso ilmaheeda kuwa dhaadheer iyo kuwa gaagaaban dhanka kale waxa ay naga xusid mudan markan Fuusiya waxa ay ka warbixinaysaa 5 kamid ah carruurteeda muuqaalkan ayaana laga duubay inta aysan dhalin labada kale carruur maadaama iminka ay haysato 7 carruur ah bal ila daawo muuqaalkan كوجو وين واتدبجر واي كوجو حجانا والدحتر واي ككلنا وافرتر ككلنا وسدحتر ككلنا هو يعني أفر بلود انت مركب أفر بلود الله كتجنو انت كلودن لبدا كعود كيبل كلا راعسين oo ilaahay de uu ka dhigay inay noqdaan أنا waxba ma kala raacin ilaahay ka dhigay ilaahay bana dheeray waxna gaabiya way koode waxayaan afar saddexna waxay raaceen aabahood way labana ay raaceen marka badankooda dhaadheerkii bay noqdeen marka waxaan rajeynayaa inaad daawatay muuqaalkan sidoo kale Fuusiya ayaa sheegaysa ninka qaba inuu yahay dadka dhaadheerka ah waxayna sheegaysaa in wax walba ay yihiin dooq balse aysan ku xirneen gaabni waa tan iyada oo cadeynaysa in ninka qaba uu yahay dadka dhaadheer dhanka kale Fuusiya gaabo ayaa waxay aad uga caban jirtay in dhibaatooyin fara badan ku hayaan reerka ninka iyadoo muuqaal laga duubay arrinkaasi ku sheegtay waxayna sheegtay inaysan wax caawimaad ka heli jirin ninka iyada qaba sidoo kale reerka ninkana ay bedelkiisa ku cadaadin jireen maxaad u qabtaa naagtan gaaban aysana ku caawi jirin ilmaha ay korinayso bal waatan ila daawo Fuusiya oo arrinkaasi ka hadlayso haddaba Fuusiya ayaa waxay noqonaysaa qofkii ugu horeeyay ee sidaan u gaaban ee guud ahaan jinsiyadda Soomaalida ku dhaxlay magac waxayna Fuusiya ka soo muuqatay bahda Universal TV iyo TV kale oo caan ah oo ay kamid tahay bahda Honkebel waxayna noqotay hobal hirgeliday hibadeedii waxaana leenahay hore u soco haddaba halkan waxaan rabaa inaan fariin kaga dilo bulshooyinka Soomaaliyeed oo aan ku leeyahay haddii aad aragtaan qof hiba leh yaan lagu nicin oo hala dhiirigeliyo haddiise qofkii hiba laba aynu cayno oo waad gaaban tahay waad dheer tahay aynu ku xirno waxay noqonaysaa in tayadii halkaasi ay ka baxdo kaliya ay soo haraan dad aan waxba tarayn ase yeeshee dadka taalantiga leh halkaasi laga waayo sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan kaga mahad celiyo bogaadin iyo fariin aan kaga diro dadka reer Hargeysa oo ay Fuusiya si weyn u amaantay waxayna sheegtay qof soo dhaweeyo maahay qof xumeey inaysan arkin taas oo aan ka cabir qaadan karno in dadka reer Hargeysa ay yihiin dad wanaagsan ayna si weyn ula dhaqmeen gabadhan haddaba isku soo wada duub warbixintan halka aad ka daawanayso waa Haldoor Media haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeeyay ee janaalkeena fadlan ha ilaawin inaad subscribe saarato si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino